xariifkaani isagoo hurda ayuu soo kacaya isagoo wata dharka dumarka kadib wuxuu tagayaa suuliga isagoo tuunjiga ku fadhiya ayuu is eegaya kadibna wuxuu ogaanayaa inuu sabba nin rag ahayn miraayadiisu istaagaya wuxuuna isku arkayaa dumar kadibna uu naxaya wuuna sooxaya balse sidee ku dhacday maalin maalmaha kamid ah gabdho wada socda oo aad u qurux badan oo waliba cunaya jalaato lana sheekaysanaya jalaatolihii iyagoo haddana hadallada ay ku sheekaysanayaan aad ugu raaxaysanayaan ayaa mid kamid ah waxay arkaysaa meel ka baxsan hoolkii oo lagu gadayo alaab aad iyo aad qadiim u ah kadibna gabadhii waxay arkaysaa dhega ka baxsan alaabta kale oo aad iyo aad u qurux badan kadib ayaana loo sheegayaa qiimaha la gado dhegahaas gabadhii way iska ladneed oo way soo gadanaysaa dhegihii wayna soo baxaysaa kadibna gabdhii waxaa ka go'aya gaaskii waxayna istaagayaan meel gas station ah balse meesha waxay kawaanayaan shaqaale taagan ninkii aan hore u soo aragnay ayaa waxaa dhacaya shaqaalihii meesha joogay wuxuuna isku dayayaa alaabtii meesha taalo dhan inuu qaato ilaa uu ugu dambeyn wax walba meesha yaali qaatay cunto hadhin ilaa iyo lacag kadib gabdhihii oo meesha taagan ayaa wacaya ninka waxayna ku dhahayaan kaali petroolka inoo shub ninkii isagoo iska dhigaya shaqaalihii meesha ka shaqeeya ayuu soo baxaya wuxuuna u shubayaa petroolka balse gabdhihii wayna ku cayaarayaan oo waa ay ka dhuumanayaan xariifkaani isagana isagoo faraxsan ayuu alaabtii xareynaya wuxuuna is leeyahay waa kuu gashay oo alaabta waad qaadan kartaa kadib wuxuu arkayaa mid kamid ah dhegii gabadha hore ayuunu sii qaadanaya habeenkii waa uu xidhanaya balse waxa la leeyahay ayaa waxay noqotay subaxdii markii soo toosay wuxuu is arkayaa isagoo ah dumar in uu naco cararo ayuu gashanaya dharkiisa wuxuuna u tagayaa gabadhii isagoo ku leh naa maxaad igu samaysay gabadhii ayaa naxaysa isaga markay aragto waxayna ku leedahay allah maxaa kugu dhacay dibna wejiga waxa uu shubaysaa wayna ku cayaaraysaa kadib ayuu u sheegayaa ninkii inay ku cayaartay personal koodkiisa yacni raganimadiisa wuxuuna u sheegayaa in uu waayay raganimadiisa oo uu noqday labeebsho kadib ninkii waxaa soo wadaysaa gabadhii waxayna geynaysaa guriga asxaabteeda waxayna u sheegaysaa xariifkaani inuusan caadi ahayn oo uu yahay saaxiibkeeda kadibna ice cream ayaa la siinaya oo wuxuu bicunayaa sida gabadhii oo xariifka ninka ice creamka ayaa ku xanaaqaya kadib ayuuna leeyahay adiga khaniis miyaata naga tagba xariifkii markale wuxuu soo aadayaa suuligii kadibna ayuu ku dhex arkayaa oday wuxuuna weydiinayaa suuliga dumarka waa xagee kaas ayuu ku leeyahay meeshaani maxaa lagu sameeya aniga kaadi ahayso maxaa sameeya ii sheeg wuxuuna soo qabanaya barafuuna tusaya kadibna xariifkan kale ayaa meesha soo galaya wuuna ku yaabaya oo uu sii tagaya wuxuuna tagayaa meesha kaadada xariifkii uu la yaabaya ninkaani wax ku yaal sababtoo ah isaga wuxuu iska aaminay in uu yahay khaniis xariifkii isagoo yaaban wuxuu weynayaa qaab uu kaadiyo odaygii ayaan la yaabaya wuxuuna ku leeyahay maxaad samaynaysaa adiga maxaase ka khaldan xariifka kadib odayga ayuu gageynaya waa uuna shuminaya kadibna waa kusoo tagaya odaygii isagoo sidaas ayuu ku noqday labeebshay gabdhihii ayuu imaanaya wuuna la sheekay